soomaaliya qof ina neceb maxaa lacag u siinaa maxaa hantidiisa u maalgashannaa maxaa alaabtiisa u gadannaa ninka adduunka ugu taajirsan elon musk oo hantidiisa lagu qiyaaso inay dhan tahay ilaa 400 bilyan oo dollar wuxuu neceb yahay ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan khaasatan soomaalida maraykan isir ahaan ayuu inoo neceb yahay isagoo caddaana oo ka yimid south africa waddankaana soo galay asagoo nin weyn si sharci darraa ku soo galay maalin walba wuxuu nagu aflagaadeeyaa nagu cayaa bartiisa tuurir uu asaga leeyahay maalin walba sidaad ogeedeen madaxweyne trump wuxuu inagu tilmaamay inaa soomaalida ay tahay dad qashina tuuga ah waxado arrinkaas haddaba waxaa aad iyo aad u sii buunbuuniyey oo kow ka ah elon musk oo ninka adduunka ugu taajirsan annaga oo soomaali oo asaga waxna ka suubisan balse clients u ah shirkadihiisaan maalgashannaa gawaarihiisaan gadannaa shirkaddiisa starlink ee internetka soomaaliya ka shaqayso haddaba sidee baan oga falcelinaa ficilkaas laba arrin ayaa ila gudboon kow dowladda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waa in ay kansalaan laysanka ay siiyeen shirkaddiisa starlink ee internetka satellite internetka soomaaliya siiso soomaali badan ayaa isticmaasho internetka satelliteka uu leeyahay elon musk lacag badanna uu ka sameeyaa sidaas darteed soomaalidaas waxaan leeyahay kansal gareeya starlink lacag ha siinina ku beddesha hormuud somtel golis iyo shirkadaha internetka kala gata dowladda soomaaliya uu ugu horreeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa leeyahay laysanka starlink ee soomaaliya uga shaqeeyo aad siiseen sanadkan bilowgiisa kansal gareeya soomaaliyana ka buriya shirkadda elon musk uu leeyahay ee starlink fariinta labaad waxaan u dirayaa soomaalida ku nool maraykanka iyo waddamada reer galbeedkaba shirkadda tesla ee gawaarida samayso soomaali badan ayaa gawaari ka garatay kuwaas waxaan leeyahay u celiya gawaaridiina dhammaan aad ka wada gadateen tesla lacag rifaanka qaata gawaari kala gata haddii aad rabtid inaad gaari tesla garatidna jooji ha gadan gaari kala gado haddii aad maalgashatay shirkadda tesla iyo starlink iyo shirkadooyinka kale uu leeyahay elon musk ee stooga lacagtaada kala bax stoogaaga gado ha cayilinin ha naaxinin nin isir ahaan ku neceb soomaaliyuu neceb yahay elon musk dadka soomaalida maraykan uu neceb yahay iyo dowladda soomaaliya iyo soomaalida meel walba joogto waayo wuxuu maalin walba nagu aflagaadeeyaa bartiisa social media annagana waa qalad waa xaaraan inaan ninka saas noo neceb aan lacag siinaa gunaanadkii walaalayaal fariintan gaarsiiya dowladda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ha joogaan lacagta annagaa iska leh economic boycott aan ku subinno sanction aan ku subinno cunaqabatayn dhaqaale aan ku subinno waayo lacagta annagaa iska leh waxaa rabnaan ku gadan karnaa waxaa rabnaa aan diidi karnaa adduun casri ayaa la marayaa gaarigiisa tesla uma baahnid shirkaddiisa starlink uma baahnid inaad maalgashanno uma baahnin fadlan lacagteenna aan haysanno annagaa iska leh waa maxamed faaraxoo idin leh walaalayaal ninkan elon musk ina neceb aan u diinno lacagteenna yaanu naaxin lacagteenna yuu ku naaxin yuu ku kibrin yuu ku cayilin aanu u diinno fariintan fideogaana gaarsiiya cid allaale ciddii soomaaliya waxaan idinkaga tegayaa amaan allah